kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Hiil Walaal oo ah barnaamij aanu kaga hadalno waxqabadka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM. qodobada barnaamijkeena ugu doorka roonna waxaa ka mid ah madaxda Soomaalida oo gaaray heshiis dalka doorasho lagu gelinayo. dawladda Soomaaliya oo gudoontay agab kala duwan oo lagu taageerayo dadka ku barakacay gudaha dalka Soomaaliya. AMISOM oo ciidamadeeda siinaysa talaalka ka dhanka cudurka COVID-19. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa shaacisay in caabuqa coronavirus oo sidoo kalena loo yaqaano COVID-19 uu yahay mid faafa. si aad gacan uga geysato ka hortagga cudurka COVID-19 oo ah virus si ba'an u haleela neefmareenka, si joogto ah u qaad tallaabooyinkan. gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq biyo iyo saabuun ugu yaraan muddo 20 ilbiriqsi ah. marka aad hindhisayso amaba aad qufacayso, ku dabool afkaaga xusulkaaga oo laaban amaba isticmaal tiish, kadibna ku rid weelka qashinka oo daboolan. gacmahana iska dhaq. ha taabanin indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga. si joogto ah u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto adigoo adeegsanaya fayras dile. iska ilaali taabashada dadka jiran. joog gurigaaga haddii aad xanuunsan tahay. haddii aad isku aragto qufac, qandho amaba neef qabasho, fadlan si dhaqso ah u gaar goob caafimaad. haddii aad u baahato macluumaad dheeri ah oo ku saabsan coronavirus, fadlan la xiriir rugta caafimaad ee kugu dhow. ka feejignow coronavirus. dawladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyey in la qabto doorashooyin baarlamaan iyo madaxweyne, kuwaas oo lagu soo dhammaystirayo muddo 60 cisho gudahood ah. wariyaasha wadada baneeya madaxweynaha jamhuuriyadda soo galaya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shir gudoomiyay shir madaxeed ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin heer sare ah oo ka kala socday dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo beesha caalamka, kaasoo muddo 5 maalmood ka socday magaalada Muqdisho. shirka ayaa suuro geliyay in heshiis laga gaaro khilaafka doorashooyinka, sarana loogu qaado nabadda iyo ammaanka. sidii aan horay idinkaga ballan qaadnay, waxa aniga iyo xukuumaddayda naga go'an dhaqangelinta heshiiskan iyo in aan doorashada dalka galayo ku hogaamino si cadaalad ah, daafurnaan, xor iyo xalaal ah, oo aan cidna lagu xadgudbin insha Allah hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu raali ka noqdo. wadahadallada ayaa waxay fursad siiyeen in la soo gabagabeeyo khilaafaadkii hareeyay doorashada Soomaaliya, waxayna sare u qaadeen ajendaha nabadda iyo amniga Soomaaliya. sidoo kale waxaa la isla meel dhigay arrimo ay ka mid yihiin awood qaybsiga, wadaagga kheyraadka, federaaleynta, doorashooyinka, hanaanka garsoorka iyo amniga qaranka. gabagabada shirka ayaa waxaa la soo saaray go'aan lagu dhisayo guddi doorasho oo ka kooban dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada. intaa waxaa dheer inay madaxdu ka hadleen guddiga maamulka doorashada Somaliland, arrimaha ku gadaaman xalinta khilaafka doorashada iyo amniga ee gobolka Gedo, hirgelinta qoondada haweenka, iyo soo saaridda jadwalka qabsoomidda doorashada iyo sidoo kale qariiradda dhammaystirka dhismaha dawladnimada Soomaaliya, iyadoo mudnaanta la siinayo sidii loo dhammaystiri lahaa dhammaanba qorshayaasha hortabinta leh. waxa weeye guul yahay guul noo soo hoyatay annaga kaliya ma aha, waa guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. rajadoodii iyo xamigoodii kor u qaaday. maxaa yeelay waa inaan fahamnaa dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan deganaashay rabaan, waxay doonayaan doorashay rabaan, waana u diyaarsan yihiin. marka runtii waa idinkaga mahadcelinayaa juhdigaad geliseen maanta ummadda Soomaaliyeed inaad ka farxisaan. aad iyo aad baan runtii idinkaga mahadcelinayaa. hadalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku soo aadayaa iyadoo AMISOM ay ka go'an tahay inay si wadajir ah ula shaqeyso ciidamada amniga Soomaaliya si loo xaqiijiyo in Soomaaliya laga taageero dhanka amniga inta lagu guda jiro hanaanka doorashada. sidoo kale waxaa shirka ka hadashay wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya, Marwe Xaniifa Maxamed Ibraahim. haweenka Soomaaliyeed waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo bulshada barkeeda ah, 50 iyo balaas ah. dalka inuu doorasho loo dhan yahay uu aado, dhammaan muwaadiniinta Soomaalida ay doorasho aadaan ayay dantiisa ku jirtaa. suuragal ma noqonayso in bulshada barkeeda dalka la ignore gareeyo
barkeedu unna dalka ay qaataan hoggaanka dalka. intii uu socday shirka waxaa kelmado ka jeediyey madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalka. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xusay in heshiisku muhiim u yahay xasiloonida dalka, amniga qaranka iyo soo celinta kalsoonida u dhaxaysa madaxda Soomaaliyeed. waxaan halkaan idinku xaqiijinayaa sida ay nooga go'an tahay qabsoomidda doorasho dalka oo ku dhacda si nabad ah, wada ogol ah, annagoo ka duulayna xasilinta siyaasadeed iyo amni ee dalka. sidaa daraaddeed waxaan si joogto ah uga wada shaqaynaynaa hubinta fulinta dhammaan heshiisyada lagu hirgelinayo doorasho ku dhacda si nabad ah. hogaamiyaasha ka qayb galay shir madaxeedka ayaa si aad u soo dhaweeyay shirka iyagoo dareenkoodana muujiyay. waddankan badbaadadiisu maxay ku jirtaa? waxay ku jirtaa doorasho in la aado, sida ugu dhaqsaha badan doorasho ku dhacdo, kalsoonida dadka la soo celiyo. wixii la soo maray waa la soo maray. maanta inaan gabagabadii iyo gunaanadkii aan joogno, adinka iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo beesha caalamkana ay marqaati ka yihiin. waxaan rabnaa inaan halkan maanta ka ballan qaadno, ilaahayna aan ka rajayno inaysan nagu soo laaban hakad ama khilaaf ama wax keeni kara niyad jab ku dhaca ummadda Soomaaliyeed. dalka Soomaaliya wuxuu joogaa xilli uu ka kabanayay horumar iyo maaragtay wanaagna dhammaan la wada qaatay. AMISOM ayaa hawlaheeda istaraatiijiga waxaa ka mid ah in la sameeyo ciidan gaar ah kuwaas oo amniga gacan ka geysanaya inta doorashadu ay socoto. waxa ayna kaashanayaan ciidamada ammaanka Soomaaliyeed marka ay doorashadu bilaabato. We only look forward to the establishment of a follow-up mechanism that can effectively implement the wishes that the federal member states president, that yourself, Mr. President, that the Prime Minister, that the speakers, that the former presidents have said. These should not be allowed to fail. This agreement must not fail. Excellency, that mechanism is extremely important and we will be attentive to support. I have been instructed to say that we accept the challenge as African Union. We accept the task that you are giving us in terms of helping you to secure this election and move forward. howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa ugu deeqay dowladda federaalka ee Soomaaliya agab isugu jira raashin iyo waxyaabo la xiriira. agabkan oo soo maray qaybta xiriirka bini'aadanimada ee AMISOM ayaa taageeri doona dadka gudaha waddanka ku barakacay ee ay saameeyeen daadadka ka dhacay meelaha hoos yimaada mas'uuliyadda AMISOM. munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta qaybta koowaad ee AMISOM ayaa madaxda AMISOM iyo ergeyga midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Danjire Francisco Madera waxa ay agabkani ku wareejiyeen wasiirka arrimaha bini'aadanimada iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye. Danjire Madera ayaa sheegay in cunno yarida, fatahaadaha deegaanka iyo roobabka ka hooseeya celcelis ahaan qiyaastii la filayay iyo ayaxa ka dilaacay Soomaaliya inay horseedi karaan xaalad aad u daran oo dhanka bini'aadanimada ah. Food insecurity is likely to worsen across Somalia, driven by the effects of localized floods, below average rainfall, and a worsening desert locust infestation. In response, AMISOM has procured and prepositioned dry food and non-food items in all the sectors under its responsibility for ease and quick distribution to the displaced, vulnerable and needy population throughout the FOBs, the forward operating bases. hadalkiisa ayaa ambassador Madera waxa uu ku sheegay in xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya ay ka sii darayso iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka u baahan gargaarka bini'aadanimada taasoo ka dhigaysa mid lagama maarmaan u ah in dhammaanba la taageero dhinacyada kala duwan si xoogaa gargaara loo gaarsiiyo dadka u baahan. wuxuu xusay in sida ay tilmaamayaan bahwadaagta caalamiga ah ee arrimaha bini'aadanimada in dad gaaraya 5.9 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool ay u baahnaan doonaan gargaar bini'aadanimo.
halka dadka u baahan gargaarka bini'aadanimada sanadkii la soo dhaafay ee 2020 ay gaarayeen 5.2 milyan oo ruux. wasiirka arrimaha bini'aadanimada iyo maareynta masiibooyinka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa uga mahad celisay howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM agabkan oo ay sheegtay inuu gaari doono dadka u baahan isla markaana uu sare u qaadi doono iskaashiga rayidka iyo militariga ee ka dhaxeeya howlgalka Midowga Afrika iyo dadka maxalliga ah. waxaan idinku boorinayaa gacansiinta bulshada inaad halkeeda ka sii wadaan iyo howlgallada lagu caawinayo dadkeena aadka u nugul ee ku sugan goobaha xarumaha idin ah ama aad wadaan amni xaqiijinteeda haddii Allah wada la ogolaado. diiwaanka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ay ku caddahay kaalinta AMISOM ay ka ciyaarto goobaha argagixisada al-shabaab ee laga eriyo in ay markii ay gacanta ku dhigaan ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in ay dadka goobahaas ku suganna ay si wada jira u gaarsiiyaan gargaar bini'aadanimo oo dadkaas aadka u nugul gacan lagu siinayo. wakiilka unuga xuquuqda insaanka ee AMISOM Abdul Diabagate ayaa sheegay in agabkan la soo bandhigay ay ka mid yihiin cunto iyo waxyaabo aan cunto ahayn si loo taageero in ka badan 42,000 oo ruux oo ku sugan dalka Soomaaliya. waxaa agabkaasi ka mid ah bariis, saliidda wax lagu karsado, sonkor, marakanicooyin iyo baaldiyo ama sakeelo. All sector of AMISOM of operation has a item. Sector 1, this is the one that we are doing. From here we'll move on to all the sectors to be able to give donation to local authority and local people and to be able to assist the vulnerable people. AMISOM waxay qabanqaabin doontaa agabyo gargaar oo ay ka bixinayso meelaha ay ka howlgasho iyadoo kaashanaysa hay-adda UN OCHA taasoo qayb ka ah howlgalkeeda iskaashiga ciidamada iyo rayidka. dowladda federaalka ee Soomaaliya, maamulada iyo sidoo kale dowladaha hoose iyo dadweynaha maxalliga ah. dowladda Burundi ayaa agab lagu baaro laguna maareeyo cudurka COVID-19 u gudbisay ciidamadeeda ku sugan dalka Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya. hanaanka loo yaqaano PCR ee lagu baaro cudurka ayaa dowladda Burundi waxay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda caafimaadka u marsiisay ciidamadeeda si loo kordhiyo howlaha lagu baarayo ciidamada si loo xaqiijiyo caafimaadkooda. soo bandhigidda agabkani ayaa waxaa lagu sameeyey xerada ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM ee Maslax taasoo ku soo beegantay dhammaadka tababar halkaasi lagu siinayay 18 askari oo dhanka caafimaadka ka shaqeeya kuwaas oo qalabkani adeegsan doona. sarkaalka sare ee caafimaadka u qaabilsan ciidamada Burundi ee AMISOM Captain Dr. Severina Irombana ayaa kooxda caafimaadka ee ciidamada ku ammaanay sida madaalinimada ah ee ay uga shaqeeyeen sugidda caafimaadka ciidamada. Before to get the result, the PCR test result, it took 1 day to 3 or 4 days, but now it will take 4 hours to get the result, which will help us to mitigate the COVID-19 spread transmission to our troops, among our troops and our partners. taliyaha ciidamada Burundi ee halkaasi ku sugan Lieutenant Colonel Kafamahamba ayaa isna wuxuu sharaxayaa muhiimadda ay arrintan u leedahay ciidamada Burundi. Vous êtes été choisi par le commandement parmi les plus tababarayaal ahaan waxaa idin xushay taliska maxaa yeelay waxaa tihiin kuwa ugu wanaagsan. tababarka kadib waxaad helaysaan xirfad awood idin siinaysa inaad u shaqaysaan si madax bannaan. bandhigiina hufani qab weyn ayuuna gelinayaa. waa idin hambalyaynaynaa waxaana idin rajaynaynaa nasiib wanaagsan. wuxuu xusay in kadib tababarkan faahfaahsan dhammaanba saraakiisha caafimaadka ee ka qayb galaysa ay awood u yeelan doonaan inay cudurka baaraan kadibna ay maareeyaan cudurka COVID-19 iyagoo sidoo kalena gudanaya waajibaadkooda nabad ilaalineed. madaxa cisbitaalka heerka koowaad ee AMISOM ee Maslax Captain Nashimiye Emmanuel ayaa dowladda Burundi wuxuu ku ammaanay taageerada joogtada ah ee ay siinayso ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya, isagoo sheegay in agabkani uu kaalin weyn ka qaadan doono ilaalinta iyo horumarinta caafimaadka ciidamada Burundi ee ku sugan dalka Soomaaliya. waxaan jeclahay inaan dowladda Burundi uga mahad celiyo mashiinkan ayna siisay kaas oo gacan ka geysanaya
baaritaanka cudurka COVID-19. COVID-19. iyadoo qayb ka ah la tacaalidda iyo ka hortagga cudurka coronavirus ee Soomaaliya, ciidamada difaaca Uganda UPDF ayaa bilaabay tallaalka COVID-19 ee askartooda ka tirsan AMISOM. hawshan ayaa waxa ay tahay tallaabo muhiim ah oo qayb ka qaadanaysa sii socoshada howlgalka wadajirka ah ee ay la sameeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. guutada ciidamada Uganda ee ka hoos shaqeeya howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa bilaabay tallaalka COVID-19 oo ay siinayaan ciidamadooda militariga ah iyo kuwa booliska ah ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM. dowladda Uganda ayaa ciidamadeeda gaarsiisay 6,500 oo tallaalka AstraZeneca ah si loogu kaabo tallaalo ay heshay dowladda iyadoo loo marayo barnaamijka COVAX kaasoo muhiimad gaar ah lagu siinayo shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo kooxaha sida gaarka u nugul. taliyaha ciidamada Uganda ee AMISOM Brigadier General Donna Bassa ayaa ku booriyay askarta inay la dagaalamaan cudurka isla markaana tallaalka ay qaataan. The vaccine is not a cure. The vaccine is meant to increase the immunity. So that implies that we can still get problems. Therefore, SOPs as guided by the Ministry of Health must still be followed in order for us to be safe, to survive, and win this terrible killer. madaxa howlgalka ciidan ee AMISOM Colonel Alan Kalasi ayaa soo dhaweeyay tallaabada tallaalka ay ciidamada Uganda ku qaadanayaan taasoo sii dhamaystiraysa dadaalada AMISOM ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19. The Force Headquarters commends the gesture by Sector 1 to undertake the vaccination of its troops as part of the overall endeavors of AMISOM to mitigate the spread of the COVID-19 pandemic, starting with all the COVID protocols that have been in place, and finally the vaccination, which we think is going to, as the theme says, to take our lives back to normal. taliya ku-xigeenka ciidamada Uganda ee AMISOM Colonel John Winston Magarura ayaa qiray in dilaaca coronavirus uu saameyn ku yeeshay ilaa xad gaaraysa howlgallada ay ka wadaan Soomaaliya isagoo sheegay in loo baahnaa tallaabada imika la qaaday. Over the past 1 year, AMISOM and Sector 1 in particular has made a number of interventions to mitigate the threat of COVID-19 pandemic. sarkaalka maamula cisbitaalka heerka labaad ee AMISOM Muqdisho Captain Dr. Gideon Nuwagira ayaa ku celceliyay in tallaalku uu muhiimad sare u leeyahay ciidamada waxaana uu sheegay in sidoo kale tallaalku uu qayb ka qaadanayo xakameynta faafitaanka cudurka COVID-19. in badan oo ka mid ah ciidamada isugu yimid hawsha tallaalka waxay u mahad celiyeen hoggaanka ciidamada Uganda ee UPDF iyagoo ku amaanay dadaalka ay ciidamada ku tallaalayaan. Now that I've taken the COVID vaccine, I'm so grateful to the AMISOM leadership and leadership of our country, Uganda, for having provided us this. I'm grateful that I'm among the first beneficiaries of this exercise. And indeed, I'm grateful that I'm now vaccinated against this disease, this invisible enemy. I encourage all of my colleagues, all the personnel within Sector 1, which is the Ugandan sector, the AMISOM, to take this job. ciidamada Uganda ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa waxa ay howlgal wadajir la sameeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyagoo gacan ka qaadanaya sugidda ammaanka dalka qaybaha ay ciidamada AMISOM ku sugan yihiin gaar ahaan Shabeellada Hoose iyo magaalada Muqdisho. howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa qabtay tababar booliseed si ay u caawiso inay ciidamadaasi boolisku fahmaan tilmaamaha la dejiyay ee lagu ilaalinayo rayidka marka ay gudanayaan waajibaadkooda. 25 sarkaal oo boolis oo ka socda qaybta AMISOM ee booliska gaar ahaan dalka Sierra Leone ayaa ka qayb galay tababarkani socday muddo 3 maalmood oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland.
sarkaalka ilaalinta amisom Gloria Jase ayaa sheegtay in tababarkan uu ahaa mid lagu dhisayo aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha booliska ee loogu baahan yahay inta ay gudanayaan waajibaadkooda gaar ahaan ilaalinta dadka rayidka ah inta ay socdaan howlgallada ay ciidamadaasi sameynayaan. The purpose of this training is to remind our commanders of their obligation to protect the civilians in Somalia while they are going about their operations. macluumaadka muhiimka ah ee la taabtay ayaa waxay isugu jiraan dhinac kasta oo ku saabsan xayndaabka xuquuqda insaanka gaar ahaan haweenka iyo carruurta, ka hortagga gacanka hadalka jinsiga la xiriira, ka faa'iidaysiga jinsiga iyo sidoo kale noocyada kale ee xadgudubka. sarkaalka xuquuqda insaanka ee amisom Kabila Munton ayaa waxay sharaxaysaa muhiimadda arrintaasi ay leedahay. We have reminded the participants of AMISOM's mandate to ensure that there's protection of civilians and also to remind the participants of the standards by which they are expected to comply. tan ugu muhiimsan ee tababarka ilaalinta rayidka ee amisom waa in la xoojiyo xiriirka ay dadweynuhu la leeyihiin unugyada booliska amisom kuwaas oo howlo muhiima ka wada goobaha ay amisom ku sugan tahay. It's more or less a reminder of our own mandate as regards our duty here as peacekeepers, because of course we are responsible for the protection of the vulnerable persons in the society as regards the women, children, and of course the disabled. So in that light, the training also looked at issue of human rights, also with emphasis on the rights of women and rights of children. taliya ku-xigeenka qaybta booliska Sierra Leone Agnes Murray ayaa mar kale ku celiyay sida ay aqoonta ay halkaasi ka heleen ay muhiim ugu tahay gudashada waajibaadkooda. Receiving such training guide us as peacekeepers on our rights as well as those we are protecting and the rights of the civilians, because we are working with in collaboration with the civilians, with the Somali police, to ensure that peace is prevailed within the community. tababar ciidan oo dheeri ah ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo si sare loogu qaado awoodda ciidamada nabad ilaalinta ee howlgalka wadajirka la wada ciidamada ammaanka Soomaaliya. ilaalinta dadka rayidka ah iyo tababarada xuquuqda aadanaha ee la siiyay ciidamada difaaca Itoobiya ee ka tirsan amisom ee ku sugan Kismaayo, Jubbaland ayaa lagu adkeeyay sidoo kale baahida loo qabo in la ilaaliyo dadka rayidka ah inta howlgallada ay wadaan. We are in the old airport conducting the training of protection of civilians, of course focusing on protection of women and girls from SGBV, conflict-related sexual violence, as well as promoting protection of their human rights. This training is part of the training series that we started in Sector 6 on protection of civilians, targeting AMISOM uniformed personnel. kormeeraha booliska Joshua Samuel oo ah sarkaalka xuquuqda aadanaha ee booliska amisom ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inay muhiim tahay in ciidamada la xusuusiyo baahida loo qabo in la ilaaliyo shacabka inta howlgallada ay wadaan. The program is gearing towards understanding the protection of child, the human rights, awareness, for them to be aware, know the AMISOM mandate. So we need to keep them aware, and they should be able to know that by so doing, as the training is going all around the sector, they will get used to it and never to violate the human rights. maadaama amisom ay raacayso qorshe istiraatiiji ah oo mas'uuliyadda amniga lagu wareejinayo ciidamada ammaanka Soomaaliya, wajigani wuxuu xoogga saaray sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadda ciidamada ammaanka si ay awood ugu yeeshaan inay ilaaliyaan dadka rayidka ah inta ay howlgallada wadaan. shan iyo labaatankii May 2021 amisom waxay ku biirtay adduunka intiisa kale si loogu dabaaldego maalinta Afrika, taas oo isku keenta wadamada Afrika iyo qaybaha kale ee adduunka iyadoo ka tarjumaysa guulaha qaaradda, himilooyinka iyo caqabadaha jira. xilli uu jeedinayay kelmad lagu xusayo maalintaasi, madaxa amisom ahna wakiilka gaarka ah ee gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Danjire Francisco Madera ayaa sheegay in maalinta Afrika ay fursad u tahay in la qiimeeyo safarkii dheeraa ee qaaraddu ay soo gashay. We take stock of how far we have come, the social, political, and economic progress that our beloved Africa has made, while also reflecting upon the common challenges that the continent faces in realizing the dreams,
of its people to live in a united, free, peaceful, and prosperous Africa. danjire Francisco Madera waxa uu sheegay in guulaha howlgallada taageerada nabadeed ee midowga Afrika ee Soomaaliya iyo meelo kale oo kamid ah qaaradda Afrika ay tusaale cad u yihiin waxa kooxaha Afrikaanka ay awood u leeyihiin inay sameeyaan marka ay si wada jir uga shaqeeyaan xalinta caqabadaha soo wajahaya. wuxuu ku celiyay kalsoonida AMISOM ee ku aadan in midowga Afrika uu barwaaqo u horseedo qaaraddan Afrika. In Somalia and in several other places, we have seen the important role that the African Union can play and does play in finding African solutions to African problems, in leading the efforts towards regional peace and stability, and in the overall development of the continent. Indeed, challenges remain, but we trust in the AU to galvanize continued efforts to move Africa into a future of stability, prosperity, shared values, Pan-Africanism, and sustainable development. mawduuca sanadkan oo dhan ayaa wuxuu ahaa farshaxanka dhaqanka iyo hidaha fududeeyaasha dhismaha Afrikada aan rabno waxay u tahay xusuusin wanaagsan Soomaaliya iyo dhammaanba wadamada kale ee Afrika si loo dhiso awood adkaysi iyo horumar inkastoo ay jiraan caqabado kala duwan. dhegeystayaal daawadayaal guud ahaan barnaamijka Hiil Walaal inta ayuu inoogu dhan yahay intaanu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa shaacisay in caabuqa coronavirus oo sidoo kalena loo yaqaano COVID-19 uu yahay mid faafa. si aad gacan uga geysato ka hortagga cudurka COVID-19 oo ah virus si ba'an u haleela neefmareenka, si joogto ah u qaad tallaabooyinkan. gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq biyo iyo saabuun ugu yaraan muddo 20 ilbiriqsi ah. marka aad hindhisayso amaba aad qufacayso, ku dabool afkaaga xusulkaaga oo laaban amaba isticmaal tiish kadibna ku rid weelka qashinka oo daboolan. gacmahana iska dhaq. ha taabanin indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga. si joogto ah u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto adigoo adeegsanaya fayras dile. iska ilaali taabashada dadka jiran. joog gurigaaga haddii aad xanuunsan tahay. haddii aad isku aragto qufac, qandho amaba neef qabasho, fadlan si dhaqso ah u gaar goob caafimaad. haddii aad u baahato macluumaad dheeri ah oo ku saabsan coronavirus, fadlan la xiriir rugta caafimaad ee kuugu dhow. ka feejignow coronavirus.